waxaanu leenahay tolkiyow annagu isaga waxba oranay maanta muusabixi tolkiyo habara walow qabsada waxa waalana arkaysaan irmaha nin waa dagaalka oranay ma haddii dagaalka kale halku ka noqon madaxweyne ka noqonaya irmaha waxaan leeyahay doorashada in la qabto 16 November doorashada madaxtooyada soo horeynaysa waxba biqin doorashada ururada galbaan ku leeyahay doorashada raataad ka baqdo doorashada madaxtooyo war kulliga wada jabhad bay nahay dalka ma wada badbaasana jabhada anigu hadda qorigay gaariga soo saarin nin kastaana buurta u galaya dad badan baa la cirro muxuu la hadli waay cirro muxuu la hadli waay cirro wuxuu ku hadli bal dadka u sheegay idigu wuxuu oran la ma dagaalama cirro uu ka weeyay nin ila dagaalama madaxweyne dalku doonay qof madaxweyne dalkan doonay inuu ka noqdana burburintiisa ka talin maayo daaraha dhaadheer cad la burburiyo idinka la dhashay cirro oo warbiya wixii haddii aad burburinaysaa idinku burburiya hadda dhisaysan dhisa cirro idin oran maayo afkiisa ma ii burburiya aniga dalkana waa la weynu dhisnay ninka haddii cid qabata la waayo ehel buu leeyahay ehelkiisu haday qaban waayaan iyadan cirro la hadal annaga la hadlayna annaga yaa la hadlayna oo jawaabayna annaga cirraa waxaanu leenahay tolkiyow annagu isaga waxba oran mayna maanta muusabixi tolkiyo habara walow qabsada waxa waalana arkaysaan dalka burburinay hadda qabsan weynaana annaga iska qaban dadku waxay leeyihiin cirro waa aaminsan yahay cirro go'aankiisa hor u dhiibay cirro wuxuu yiri doorasho anagu ma galayno aan urur ma galayno doorashada madaxtinimadu baan anagu galayno isaga Faysalba marka dadku waxay leeyihiin cirro waa aaminsan yahay cirro go'aankiisa hor u sheegay aamusnaanta waa aaminsan dawacada go'aankiisa waa caday taasna anagu waa ra'yigay ka dhigtaan wuxuu marka go'aanku wuxuu doorasho urur gali maayo doorashada madaxtinimada midaan ahayn gali maayo marka go'aankiisa cirro waa cadi Cabdiraxmaan go'aankiisa waa cadi shacabka reer Soomaaliland oo weegiin beelaha Soomaaliland wada deegaano weegiin Cabdiraxmaan go'aankiisa waxa weeye Soomaaliland god bay ku dhacday Soomaaliland god bay ku dhacday beelaha Soomaaliland wada digow Soomaaliland ka saar godki oo ninka meesha haysta ee dalka ka qabta waxa uu la xad aaminsan yahayna bal in ay ka hadlaan beelaha Soomaaliland wada degaa oo dalkii la badbaadiyo in dalkii la badbaadiyo warshad qaran la isugu yimaado ayuu Cabdiraxmaan la hadda aaminsan yahay baan soo noqdo labada jabhadan buurta gashay war kulliga wada jabhad bay nahay dalka ma wada badbaasana jabhada anigu hadda qorigay gaariga soo saarin nin kastaana buurta u galaya nin kastaana buurta u galaya Cabdiraxmaan aamusnaantu aaminsan yahay ma aha inuu baqay ma aha inuu doorashada ururada yeelay waxa weeye inuu adeer dalkan cid dan kale dalkan cid kale dan kale inay ay dalka badbaadiso waxa weeye anigu ka American keen waxa weeye waxa soo galay wadankii oo qalaas iyo buuqa taagan yahay go'aanka cirro qaatayna waxa weeye go'aanka cirrana wala la xalinaya wala la fariisanaya wala la shiraya oo ma fahan waxa weeye tan jabhada timi jabhaduna adeer horta tan maanta ku jirna wixii dambe tan maanta ka jirno ila biixa ka saari kara looma baahna buuq iyo qalaase iyo gabgal looma baahna anigu ka diyaarada oo raacaya waa tagaya war tan wixii ku hadhay miye kaymiyo jaahilow war waxay tan waan iska tagaynaa waan iska dhoofaynaa waxa weeye ila biixina dib aan ugu celinaa waan dooranaa inaad Cabdiraxmaan Cirro maxaa ku dhacay maadaama uu hogaamiyaha xisbiga wadani ama taageerayaashii lama hadal waxa weeye in hadal iyo hadal la'aanba sawirka ka baxaya Soomaaliland way muuqataa waxa weeye waa lagu kala dhaqaaqay in commission iyo waxa weeye macaarid hadlaya iyo Cirro hadlaya toona ma jiraan waxa weeye anigu burbaan ibsado burkaas ku dagaalamayaan iyo cirro wuxuu la aamusay aniguba waan ka aamusilaade waayo waa dalkoo duma wuxuu ku hadlaa maanta halkaana taladeeda waxa dhigay madaxweynaha dalka madaxweyne waxa tiri anigoo kaliya talinaya taydaana meel maraysa rag baa wadanka kugula nool oo kula leh oo kugula soo dhintay waxba ugama ogoli baa tiri tayda ha ku dhaqmaan waxa weeyaan taasina mid shaqaynaysa maahee maantaba waa taa gacan libaax ka dilaacday burcana way ka dilaacaysaa marka aamusnaanta arkaan waxaan u arkaa waa xaaladii ugu dambaysay baan u arkaado meel laga jawaabay inaanu meel ka jawaabo taagnayn baan geelata waayo hadduu jawaabo xitaa mooshin baa qabsanaya marka anigu taariikh intaasan kaga hadhaya muusana waxaan leeyahay arrinkaasi wuu kuma muuqdaa ama baqti ama dalku xaalad xun ku noqdo xaaladda dagaal ku socdo ninna daru ma aha maanta aduun baa qaban karo joojin kara cirrana waxba uma yaalin imika saacadan oo saacadu imika hadla ma taagna oo isaga waxba kuma xidhna laakiin maanta xaaladda iyo ciidanka kacaya jabhada aday hawshaasi maanta ku taala wax la yiri gari ilaahay bay taqaanaa laba qof haday isqabtaan baa la yiri qof baa
meesha waxaan ku jirin soo gelinaya amba mid baa wax ku jira ka saaraya ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa doorashada in la qabto 16 November doorashada madaxtooyada soo horeynaysa waa gardarro sheeko ururadu waddanka wada leeyahay Muuse keligii mala waa nuu soo halganay waddanka ciidanka Soomaaliland waxaan farayaa inaanay u dagaalamin rajiim sii dhacaya maxaa yeelay maxkamad dagaal baa iman doonta maadaama cirro wali aaminsan yahay ilmeer baa lagu aabaha iyo hooyada midil waxa uu afka ka kala hayaa buu cirro wuxuu la aaminsan yahay go'aan wali uu qaato garan leeyahay in waddanka uu burburo iyo in waddanka uu dhiso cirro ma nin waa dagaal ka waranay ma haddii dagaal kale halku ka noqon madaxweyne ka noqonaya cirro ma waxaan leeyahay cirro waxba biqin doorashada ururada galbaan ku leeyahay doorashada raataad ka baqdo doorashada madaxtooyo maxaad isku aaminaysaa doorashada wad ka baqdi doorashada madaxtooyo maxaad isku aaminaysaa markaa shaqada baynu wada ciyaar waxa tiri anigu aan dhigdhigo anigu aan labada god badhigo adigu idaawo halkaas ay taagantay salaamu calaykum qalay dagaal dhici maayo Soomaaliland way weynaato way balaaratay kulli mulaaqana laga waayay maayo laakiin waxa laga arkaa in la xalilo